waxyaabaha cajabta leh waxaa ka mid a markaa aynu soo qaadanno midhadh dulqaadkiisa iyo cafwigiisa iyo sida uu ula dhaqmayay saxaabadiisa iyo naxariistiisa ilaahay baaba ku leh fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan ghalida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr faida cazamta fatawakal cala allah aayadkani goormay soo degeen waxay soo degtay dagaalkii uxud markii la galay gaalada markii hore la jebiyey saxaabadii wax jebisay qayb ka mid a ayaa meel uu nebigu u diray inay ilaaliyaan ayay ka soo yaaceen iyagoo isle dee gaala jabtaye haniimada wax ka qaata gaala jabtaye haniimada wax ka qaata waataynu siirada ku naqaano in khaalid meeshii uu soo weydaartay akhiiran saxaabadii waa la jebiyey markii la jebiyeyna ragga badh waa iska fadhfadhiistay ragga badh toddobaataneeyaa waa la dilay ragga badh waa cararo orodkii madiinuu ku galayba goobtaba intuu ka cararo madiine ku galay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii oo nabaraa ku dhacay god buu ku dhacay birtii madaxaa gashay dhabanaday ka mudday ilkaha badh baa la jejebiyey dhiig baa laga keenay salaaduu fadhiga ku tukaday mashaakil aad u badan baa nebigana ku dhacay waxaasoo dhiboo dhacday ayaa ilaahay wuxuu leeyahy fabimaa raxmatin min allahi linta lahum ay fabisababi raxmatin min allahi linta lahum naxariis xagga alle ka timid daraaddeed baad ugu naxariistay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala oo saxaabada tan waad u naxariisatay ee iska cafi oo ilaahay dembi dhaaf u weydii oo taladana wax ka sii baa lagu yidhi weliba ragga akhtaadaa galay ayaa la leeyahay taladana wax ka sii baa lagu yidhi dee ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin walidalik baa caaisha waxay leedahay nebi maxamed weligii dumar iyo caruur iyo qofba gacantiisa kuma dhufan saxaabada iyo dadkii la noole weligii qof gacantiisa kuma dhufan bal wuxuu soo maray axadu saxaaba ka qoslinaya saxaabada kale dabeetana isagoo sii jeeda oo aanu arkaynin oo uu saxaabada ka qoslinayo ayuu ul yarow nebigu sitay buu kelida kaga gujiyey saxaabigii baa booday dabeetana wuxuu ihi ilaahay rasuulkiisiiyow oo aday dhaawacday waan kaa goosanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi gooso xaq baad u leedahay gooso dabeetana wuxuu yidhi markaad aniga nabarka igu dhufatay kelidaydu way bannaanayd maray ma saarayna dee adiga maraad seeta nebigu intuu maradii ka fayday buu yihi gooso waaye dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu qabsaday buu dhunkaday markaasuu wuxuu yidhi wuxuun baa rabay jidhkaygu inuu jidhkaaga gaadho ilaahay rasuulkiisiiyo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ugu naxariisanayey gaaladaa la yidhi habaar markaasuu yidhi innii lam ubcath lacaana wa inamaa bucithtu raxma saxiixu muslimka ku yaalla waar anaga layma soo dirin buu yidhi inaan mid dadka nacdala noqdo ee anoo naxariisa baa ilaahay soo diray buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa gaalo habaar bay ku yidhahdeen udcu cala almushrikiin bay ku yidhaahdeen dabeetana layma soo dirin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mid ilaahay cadhadiisa dadka kusii fogeeya inaan ahaye waxaa lay soo diray anigoo ah mid naxariisa ayuha alaxiba waxaynu garan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cafwigiisii anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu arrin ii dirtay markaasaan idhi buu yihi wallahi laa adhab wallaahi inaanan tegaynin laakiin afkun baan ka idhi buu yidhi waxaan rabay inaan shaqada soo qabto waan baxay ciyaal meel ku cayaarayaan u imi buu yidhi waa inan yar kuwii baan iskala cayaaray buu yidhi cabaar markuu nebigu yaro waayey buu soo baxay uu ka daba yimi dabeetana anigoo cayaartii la wada buu yidhi buu qadaadka igu dhegay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaan eegay buu yidhi inan yar oo shaqo loo diray oo iska cayaar tegey oo isagoo cayaaraya inta laga daba yimi halkan la qabtay kor baan eegay buu yidhi markaan arkay inuu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu qoslay buu yidhi war waxaan kuu diray miyaad qaban buu igu yidhi buu yidhi adhabta xaytu amartuka waa tegayaa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa tegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma maagin ma dilin waa sii daayay sidii buu u baxay
naxariistiisa waxaynu ka garan karnaa isagoo masaajidka jooga ayaa nin reer baadiyii soo galay masaajidkii nebigu dee kaarbati iyo waxaan ima jirin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisu cariish yar buu ahaa oo dushana laamahan timirtu caleemaheeda xagga sare oo roobku markuu doo intuu ka soo duso nebigu dhoobada ku sujuudo isagoo intan oo dhan dhooba tahay uu ka soo tooso caynkaasuu ahaa masaajidka nebigu calayhi salaatu wasalaam ciid buu ahaa dabeetana nin reer baadiye baa yimi masaajidka halkaa yaro damumu intuu iska faadhfaadho iskaga kaaji dabeetana saxaabadii baa ku qaylisay rag ka mida waxay idhaahdeen mah waa eraya ah dee la maagayo la leeyahy joojiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laa tusrimuuh dacuuh warkaadida ha ku goynine iska daaya buu nebigu le waa nin masaajid ku kaajaya nin masaajid ku kaajayuu nebigu u naxaya dabeetana wuxuu leeyahay kaadida ha ku goynina ee maxay sameeya iska daaya buu dhaha kaadi dhammayste markuu kaadida dhammaysto kadib baaldi biyo ah ku shuba buu wadaan biyo ah markaa ku shuba buu yihi way daahir noqonaysaa isagiina wuu yeedhay wuxuu ku yidhi ina hadihi almasaajid laa taslaxu lishayin min hada albal wariyaha ninkow masaajidku wax kaadiya iyo waxaasi uma cuntamaan meel kaadi iyo saxaro la keena maahee ilaahay dikrigii iyo salaad iyo qur-aan akhris baa loogu talagalay idinkuna ninkan waxba ha u geysanine kaadii de kollayba bilow haddaa ku qaylisaan meel kalunbuu la sii marayo ama isaga isnijaasayn ama meel kalunbuu sii nijaasayn waxba faa'iideyn mayso walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam caynkaa ku yidhi nebi maxamed nebi buu ahaa oo rasuul buu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo madaxweynu ahaa oo hogaamiye ummadeed buu ahaa oo qaadi buu ahaa oo siyaasigoodii buu ahaa waxaasoo dhan isagoo ah ayuu haddana wuxuu ahaa rajul mutawaadica oo foqorada iyo masaakiinta iskala fadhiista oo aan isweyneyni ku jirin oo bulshada aan cidnaba iska gaar yeelin bale wuxuu dabaqaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy tilka addaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada taasi waa daarta aakhire baa ilaahay yidhi waxaanu u diyaarinay daartaasoo leh kuwa aan adduunka korkiisa iskoraysiin iyo isla weyniye ku jirin iyo fasaad toona kuwaasaa leh nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku yidhi saxaabadu nebiga way weyneynayeen haddana wuxuu ku yidhi oo ragga barhkood baa waxay leeyihin weliga iyo nebiga isha kamaanan buuxsan xataa weyneynayaan haddana wuxuu nebigu ku yidhi laa taturuunii kamaa atarat inasaara bnu maryam ha igu xadgudbinina siday nasaari ugu xadgudubtay maxay nebi ciise say u boonbooninayeen bay waxay yidhaahdeen waa maxay waa ilaah iyo waa inay ilaah iyo wax la mida inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuulih waxaan ahay addoon ee waxaad tidhaahdaan waa ilaahay addoonkii iyo rasuulkii dhaha sidaa idhaha buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxa ay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo maqaamkiisu uu sarreeyo aan taa muran ka taagnayn ilaahay baa qur-aankiisa maxay ku leh ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisuba waa ku salliyaan baa la yidhi nebi maxamed yacni salliga ilaahay waa athanaa waa ammaantiisaa laga sheegaa maxay almala-i laclaa rabu الsamaawaati waalardi baa addoonkiisaa yar ammaan uu ammaanaya u sheegaya malaa'ikatu lmuqarabiin malaa'igtuna ilaahay bay dembi dhaaf iyo naxariis u weydiinayaan ee dadkiina mu'miniinta ahowna ku salliya baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam salluu cala rasuul isagoo maqaamkaa jooga ayuu haddana isna wuxuu leeyahay hay weyneynina weynidiinna ha ku xadgudbinine waxaad tidhahdaan waa ilaahay addoonkii iyo rasuulkii nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu leeyahay aakul kamaa yaakulu alcabd wa ajlisu kamaa yajlisu alcabd sida addoonku waxu cunaan wuxuu cunayaa oo siduu u fadhiistaa baan u fadhiisanayaa isma weyneynayo